halkani waa xarunta golaha murtida iyo madadaalada ee National Theatre oo ku burburtay dagaaladii sokeeye oo haatan mar kale rajadeedii dib ugu soo noolaatay mashruuca isxilqaan. Tiyaatarka qaranka oo ahaa xaruntii lagu aruurin jiray laguna soo bandhigi jiray suugaanta iyo dhaqanka dalku lahaa ayaa in ka badan 20 sano ku sugnaa xaalad adag ee burbur baahsan iyadoo min kor ilaa hoos la fiiqday oo waxba loo reebin. Maxamed Ibrahim Maxamuud Carlos waxa uu ka mid yahay dadkii u soo joogay xilligii tiyaatarka qaranka howlgali jiray waxa uu ka sheekeynayaa waxqabadkii tiyaatarka. Tiyaatarka barnaamijkii waxaan ku fiirsaday riwaayado badan riwaayadaas oo kala ah xashimiya arooska wiili waalidka la warla madamada dimaashada gabar baarti garooba karoon fikri farax jacayl xijigtiis xujeysi kibirkii baarti ka soo saaray jacaylka riwaayadaas oo banaadir ahay riwaayadaha dhinaca hobalada waa bari waxa kamid ahay warfi shimbir waris kuma hayaan yaa wan qale waqtiga qabrigii jacaylka riwaayada magac bahday hawaan la jacaylkan warka adni riwaayado badan oo aan magacadooda hadda xoogaa xasuusnayn marka barnaamijkii riwaayadihii oo dhinaca banaadirgana way ku tartami jireen dhinaca hobalada waa bari way ku tartami jireen. Muddooyin waxaa jiray tiyaatarka qaranku soo maray mashquul ay ku badnaayeen soo bandhigida riwaayadaha iyo barnaamijyada tartamada heesaha sida barnaamijka heesaha hirgalay. Ka soo barnaamijyada maaweelada waxaa xarunta tiyaatarka lagu qaban jiray munaasabadaha qaranka iyadoo lagu soo dhaweyn jiray madaxda caalamka ee soo booqata dalka waxaana xaruntaasi ay ahayd meel ay ku soo hirto qof kasta oo leh hami faneed sida uu sheegay Shamaali Axmed Shimaali oo ah fanaan aad looga yaqaan dalka gudihiisa isla markaana wax badan ku soo caweeyay tiyaatarka xilligii barnaamijkii waxa uu si kooban ugu sheekeynayaa xilliga sida uu ahaa tiyaatarka iyo heestii ugu horeysay uu ku qaaday halkaasi jirtay tigidhada labada duhurnimo tigidha malaha dad ayaa qaadan jiray dadkaasi markay 100 ku goosteen habeenkii waxay geli jireen 300 si taas loo baabi'iyo cabdi xaashi hadda ninka aqalka sare xukuma ayaa maareeyan oo ahaa fikrad buu keenay corruptionka in la baabi'iyo saf ayaa la geli jiray safku wuxuu imaan jiray ilaa SYL ilaa madaxtooyada irideeda tigidkaad goosanaysaa waa gelaysaa marka tiyaatarka waxa weeyaan maasha allah haddase laakiin dib u habeen ayaa ka socotay ma u malaynaya walaalay kullu shay yarjic ilaa aslihi sidii hore inuu ku noqon doono anigu marka Shiiraan Shidaad Muraad Allah yarxam ayaan isku gobolka nimid ayaan u tagay Shiiraan waa kaxeeyay Cabdalla Nuruddin oo iigay Allah yarxam labadu way dhinteen marka waa Faaduma liisiyay Faaduma jacaylkani waa fiid baxayo ku fidaya firaha wanago firaashiyo farxadan wadaagno Faysal iyo xambaartood faraxda dahaysa Faaduma jacaylkani waa fiid baxayo ku fidaya firaha sida ruux la falebaan fiidkii habeenimo sida ruux la falebaan fiidkii habeenimo weligay faqaya xilligan oo ay socoto dib u dhiska tiyaatarka qaranka ayaa dad badan iyada ka muujinayaan in ay suurtagal tahay in mar kale awood loo helo in dib loo aruuriyo suugaanta. Ismaaciil Macalin Cabdullaahi agaasimaha shaqagelinta shaqaalaha rayidka kana mid ah mas'uuliyiinta haatan gacanta ku haysa hawsha dib u dayactirka tiyaatarka qaranka ayaan wax ka weydiinay sida ay u socoto dhismaha xarunta murtida iyo madadaalada ee National Theatre. Tiyaatarka markii ugu horeysay oo aan shaqada bilownay waxay ahayd 22 sanadkii tagay October waxa bilaabay oo daah furay shaqaalaha rayidka gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradaha alaab waxa loo sameeyaa jadwal ay ku tartamaan jadwalkaas wareegga koobaad markuu dhamaado waxa la sameeyaa wareegga labaad wareegga saddexaad wareegga afraad wareegga shanaad hadda waxaan maraynaa wareeggii shanaad ayaa gabagaba noo ah waxay ahaa tiyaatar dhisan oo nidaamsan
oo bileetiga la goosto galab dheer si uusan habeenka kaaga buuxsaminin oo 1200 qof ay fariisato oo meel VIP leh oo quruxsan oo madaxda loogu talagalay oo daahmo waaweyn ay ku xiran yihiin oo hobolada waa bari oo dhan isku soo diyaariyaan oo fanaaniinta iyo qolada laxanka tumana hoos ay ku jiraan dhulka hoostiisa oo waxay ahayd runtii aad u nadaamsan oo nalal qurxan oo decoration fiican oo sheenayska dhisay barigii uu dhisay si weyn looga fikiray mar kale Shimaali xasuustiisii tiyaatarka anigu warta Shimaali ahaan waxaan dhigay isaseega jacaylka riwaayadii jiray Maxamed Saleymaan Tubeec ayaa actor ka ahaa anna waxaan ka ahaa second actor Nimca Yaasiin Calaale ayaa noo dhaxaysay asiga waxa kamid ah heesaheeda ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo buriga la culside habaylihin kalgacalkii heeskan riwaayadaas oo ku jiray isaga jacaylka iyo waxaan kaloo ku lahaa hees kale fikiriyo naftayday filan waagan igu dhacay fituba lawayde feedha bidix wadnaha suran tii jacayl ku fidisayba fulin weyday wacadkii adiga dhammaystiran doona iyo waxaan kaloo dhigay damac adduun riwaayad la jiray oo riwaayada aan aad iyo aad ugu soo caanbaxay ka mid ah عتوبي عيش وكجوي عوام الجيف دون تير وايدي أي كجرتي ده معدون اللي جري وحن كرر لجاي إن سافي مكة صبراي وكسوجاي إلى سور قيامة رفض الراحة إن وحن كرر لجاي سد ملء سريجلاي halkan waa goobtii murtidii madadaalada ee National Theatre waxa ka socdo asiga ay goobo ay ka mid yihiin madxafka iyo maktabada qaranka oo la dib loogu soo celinayo bilicdii ay lahaan jireen bersamaadkii Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV magaalada Muqdisho